السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maalin wanaagsan meel kasta aad joogtaan. insha Allah maanta waxaynu ka hadlaynaa qodob xasaasi ah oo in badan soo noqnoqday dadkuna markasta ay rabaan inay jawaab waafi u helaan. qodobkaas wuxuu ku saabsan yahay maxaa sababa in mar walba bukaanada qaar ama dadka qaar ay ka cawdaan oo ka eed sheegtaan in daawooyinka ay qaadanayaan aan waxba u tarayn. tusaale ahaan qofka isbitaal buu tegayaa, xanuun baa lagu soo sheegayaa, daawa la soo siinayaa, maalmo kadib qofka markaas wuxuu ka cawanayaa ama ka eed sheeganayaa in daawadii aysan waxba u tarin, xanuunkiina uu weli hayo. haddaba arintani dhowr siyaabood baa u kala qaadaynaa ama ilaa 3 qodob baa u kala qaadaynaa. in qofku uu daawo loo soo qoro kadibna daawadii uusan waxba haba yaraatee u tagin. marka hore qodobka koowaad ee sababi kara in qofka intuu daawo isticmaalo daawadiina aan waxba u tarin, xanuunkiina uu weli uu qofkii hayo oo ka cawanayo in xanuunkii weli uu dareemayo, daawadiina aysan haba yaraatee wax isbedel jirin. 3 qodob meelahaas baan u kala qaadaynaa sababteeda arintaasi. midda koowaad waxa weeye, marka hore bukaanku markuu isbitaalka aado oo dhakhtarka u tago, waxaa dhici karta in bukaankaasi xanuunka uu haya ama xanuunka lagu sheegayba, yacni xanuunka qofkaasi uu ka cabanayo iyo xanuunka lagu sheegay inaysan islahayn markaasi, oo 2 xanuun oo kala duwan yihiin. taas waxay ku dhici kartaa in dhakhaatiirta qaar ay markaasi ka hoos baxdo, dhakhaatiirtoo dhan maaha, dhakhaatiirta qaarkood inay markaasi waxa weeye misdiagnose waxa la dhaho baa jira, oo dhakhaatiirta qaar ay ku dhacaan oo ah qofka in waxa weeye xanuunkii uu ka cabanay maahan xanuun kale ay ku diagnose gareeyaan ama ay ku sheegaan, iyadoo markaasi hadhowti cilado badan sababi karta qofka xanuunka haya exactly ama xanuunka sida saxda u haya haddaan si fiican loo kuurgelin ama si fiican aan loo dhabagelin in markaasi qofkii xanuun aan hayn waxa weeye lagu sheego. marka qodobka koowaad haddii aan soo koobno waxa weeye, qofka xanuunka uu ka cabanayo iyo xanuunka uu dhakhtarka ku sheegay inay 2 kala yihiin. taasna waxaa loo sababeynayaa waxa la yiraahdo misdiagnose, oo ah in markaasi xanuun uusan qabin qofkii lagu sheegay ama markaasi dhakhtarka uu ku sheegay. taas waa cilad xagga markaasi dhakhaatiirta qaarkood ah oo xagga experience-ga aan dhihi karno weeye sababteeda. marka qodobkaas inaa fahanteen baan rajeynayaa. qodobka labaad wuxuu noqonayaa in mushkilad xagga daawada ah, oo qofkii masalan daawadii la siiyey. qodobkan labaad aan u kala qaadno ilaa 2 qaybood. qofkii daawa la siinaya, tusaale ahaan daawadii markii la siiyo, khaladka koowaad waxaa laga yaabaa qofka in daawadii dhakhtarka masalan inuu ku yiri oo kale 7 beri isticmaal, marka xagga isticmaalka inay khaldan tahay oo qaabka qofka uu daawada u isticmaalayo iyo qaabka uu dhakhtarka u yiri u isticmaal inay kala duwan yihiin. badanaa bulshadeenana qodobkaas waan ku arkay, oo masalan qof baa daawo loo soo qorayaa, dhakhtarku wuxuu leeyahay daawadaas waxaad isticmaalaysaa muddo bil ah ama 2 bilood. qofkii waxaa laga yaabaa markuu asbuuc isticmaalo xanuunkiina uu wax yar ka dareemo inuu ka tagay inuu joojiyo, hadhow waxaa laga yaabaa 2 asbuuc kadib inuu xanuunkii kusoo laabto. marka qodobkaas waxaa muhiim ah in qofka markii daawo loo soo qoro oo dhakhtarkan uu ku yiraahdo daawadaas isticmaal 7 beri, 5 beri, 6 beri, bil, inuu sida ay dhakhtarku ugu sheego u isticmaalo. haddii lagu yiri habeen kaliya isticmaal, inuu habeen kaliya isticmaalo. haddii lagu dhahay subax kaliya isticmaal, inuu subax kaliya isticmaalo. yacni isticmaalka saxda ah ee dhakhtarka kuu soo sheegay waa inaad u isticmaashaa. qodobka labaad wuxuu noqon karaa oo hoos imaanaya qodobkan labaad, qofka waxaa laga yaabaa daawadan loo soo qorayba inuu yahay daawo uu isticmaali jiray oo jirkiisa uu la qabsaday. bulshadana Soomaalida waxaa ku badan inay daawooyin iska qaataan aysan dhakhaatiir u soo qorin. marka qofka markuu daawo khaldan qaato xanuunkiisana uusan qabin, yacni qofkii daawo qaadanaya xanuunka daawada loo isticmaalana muu qabo, dhakhtarna uma soo qorin, hadhow wuxuu sameynaya jirkiisiiba daawada la qabsanaysa. berika maalin markuu xanuunsado oo dhakhtar u tago oo daawadii loo soo qoro, daawadii jirkiisa waxba kama tarayso, already jirkiisii way la soo qabsatay. marka waxay sameynaysaa low resistance oo iska caabin,
daawadii qofkii waxba uma tarayso. Marka qodobkaasna waxaa hoos imaanaya in markaasi laga taxadiro daawooyinka aysan dhakhaatiirta kusoo qorin oo qofku iska qaadanayo intuu farmasi tago iska soo gadanayo daawo kasta. Daawooyinka qaar waxaa jira haddii aad iska qaadatid iyadoon dhakhtar kusoo qorin saameyn badan kugu yeelan kara, iyo daawooyin saameyntooda ay iska yar tahay. Marka daawooyinka saameyntooda badan tahay oo u baahan tahay in dhakhtar aad la kaashatid, ha iska qaadani ilaa dhakhtar uu ku dhaho daawadaas qaado maahane. Qodobkaas haddii ay inta uga gudubno qodobka labaad oo aan u kala qaadnay in xagga isticmaalka daawada qofka ay ka khaldan tahay oo qofka si khaldan uu qaadanayo, iyo qodobka hoos imaanaya oo ah in qofkan daawadan uu horey usoo isticmaalay iyadoo xanuunkii uusan qabin, dhakhtarna uusan usoo qorin. Qodobka saddexaad ee hoos imaan kara sababta dadku badanaa ay uga cawdaan in daawooyinka ay qaataan aysan waxba u tarin waxaa kamid ah xagga baaritaanka. Qofkan kowda hore oo markuu la baarayo oo dhakhtarka uu baaritaan u diro, in baaritaankii si sax aan loo sameyn oo baaritaankii aan si lagu kalsoon yahay oo saxa aan loo sameyn. Taas waxay ka dhalanaysaa qofkii in natiijada kasoo baxaysa baaritaankiisu ay tahay natiijo aan markaasi jawaabteedu fadhin, oo qofkii laga yaabo in xanuunkan uu qabo, laakiin jawaabta markay soo baxda la yiraahdo xanuunkan ma qabtid oo negative baa taha. Ama qof isagoo xanuunkii waxa weeye aan qabin la dhaho xanuunkan waa qabtaa positive baa taha camal. Marka qodobka saddexaad waxay sii xoojinaysaa in markii baaritaanka la sameynayo si fiican oo laga taxadiray oo waxa weeye aad loo qorsheeyay qofkan baaritaanka looga qaado, oo baaritaanka uusan noqonin baaritaan aan si fiican loo sameynin. Ama hadday noqoto shaybaar, hadday noqoto qofka inuu kombiyuutar marayo, noocay rabto baaritaan noqoto, hadday noqoto in dhiig laga qaadayo, yacni baaritaankii in wadadii saxda ahayd ee loogu talagalay loo maro si jawaabtu ay sax u noqoto. Marka inahaas baan kusoo koobayaa ciladaha sababi kara in qofka daawadii uu qaatay aysan waxba ka tarin. Badanaana dadku way isweydiiyaan, daawadan waan qaatay, dhakhtar baan u tagay, dhakhtar baa ii soo qoray, haddana waxba igama tarayso. Marka saddexdaas qodob baan kusoo koobi karnaa. Haddaan mar labaad xusuusiyo, qodobka koowaad oo qofka ku sababi kara in daawada uu qaatay aysan waxba u tarin waxaa kamid ah 1 in marka horeba ay dhacdo waxa la yiraahdo misdiagnosis, oo ah qofkii xanuunka uu ka cabanayo xanuun aan ahayn in lagu soo sheego. Taasna ay noqon karto cilad ka imaanaysa xagga dhakhtarka oo dhakhaatiirta qaar oo misteekaas ama khaladkaasi uu ka dhaco, oo qofkii ay markaasi ka hoos baxdo xanuunka uu ka cabanayo iyo xanuunka ay ku daweeyeen ama ay ku sheegeen inay laba xanuun kala noqdaan. Ama qofkii isagoo xanuun ka cabanaya cilad xagga keliyaha ah in markaasi ay kusoo sheegaan cilad xagga wadnaha ah oo kale. Marka taas waa khalad xagga mistake imaan kara dhakhaatiirta qaarkood. Qodobka labaad wuxuu noqon karaa qofka in daawadii markii dhakhtarka usoo qoro ka soo qaado qofkani xanuunkii saxda ahaa ee uu qabay baa loo soo sheegay, laakiin qofkan ciladiisa waxa weeye xanuunkan wuu qabaa waa sax, laakiin qofkan daawadii buusan si fiican u qaadan, oo dhakhtarkii qaabku u dhahay daawadaas saa u isticmaal oo intaasoo muddo isticmaal, 2 gelin isticmaal maalintii, qaabkii saxda ahayd oo dhakhtarku ugu talagalay buusan u qaadanin. Qodobka hoos imaanayka waxa weeye qofkan inuu daawadiiba hadda ka hor isagoon xanuunkiina qabin dhakhtarna usoo qorin inuu daawadanba isticmaalayba. Marka jirkiisa waxay sameynaysaa inay daawadii la qabsato beri ka maalin markuu xanuunsado oo xanuunkii daawadan loo cuniyey uu ku dhaco oo kala ka soo qaadba daawadii jirkiisa waxba kama tarayso, sababtoo ah daawadii jirkiisii way la qabsatay. Qodobka ugu dambeeya ee hoos imaan kara sababaha keeni kara qofka in daawadii aysan waxba ka tarin waxa weeye xagga baaritaanka qofka marka hore markuu isbaarayo, hadday noqoto baaritaan shaybaar oo dhiigag iyo wax noocaas ah, hadday noqoto baaritaano kombiyuutar ah oo qofkii markii uu hore u isbaarayayba in baaritaankiisu uusan saxsanayn oo qaab sax aan loo sameynin baaritaanka, hadhowna ay ka dhalato jawaab khaldan ay ka dhalato. Markaasi qofkii ay dhici karto marmar in xanuunkii isagoo qaba la dhaho ma qabtid, ama isagoo aan qabin la yiraahdo waad qabtaa. Marka saddexdaas qodob baa u sabab ah ciladaha markaasi keeni kara qofka inuu markaasi daawo loo soo qoray oo daawadii waxba ka tari weysay. Marka taas darteed waxaa muhiim ah marka horeba marka isbitaal tagtid inaad 100% aad markaasi arrimahaas oo dhan aad ka feejignaatid oo taxadar badan u sameysid.
موضوعي maanta intaasuu ka egyahay. haddii aad wax uun ka faa'iiday la sii wadaag asxaabta. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir insha allah waad ka faa'iidi doontaa muuqaalada. haddii aad horey noola joogteen like-tan nagu dhiirigeliya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.